madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland haatan ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa xilli uu la hadlayay golaha baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland waxa uu si aad uga hadlay arrimaha dhinaca dhulalka ee isugu jira dhulalkii ay lahayd dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo shacabka ku nool deegaanada maamul goboleedka Jubbaland waxaana uu Farole sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland uu ku guuleystay dib u soo celinta dhulalkii danta guud iyo dayactirka qaar ka mid ah dhulalkaasi magaalada Kismaayo markii aan dhex marnay waxaan ku arkay magaalo guryihii dowladda dhammaantood ay wixii dunsanna sidoodii lagu xafiday wixii la dayactirina karana la dayactiray oo ay ka mid tahay madaxtooyadii oo saaka soo maray oo ay ogtihiin magaaladaanu ahayd magaaladii xamar markay dowladii ka baxday magaaladii ugu weynay oo qaxooti ku soo qaxo ay ahayd ay qaxooti degeen meel walba laga baneeyay lana dayactiray gurigan maanta aad fadhidaanna oo ka mid yahay gudihii laga saaray dadkii qaxootiga u soo galay lana dayactiray oo maanta oo yahay meel lagu intifaacayo oo lagu shaqeynayo aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinayaa maamulka oo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan madaxda ka yahay idinkuna aad baarlamaan ka tihiin iyo golihiisa wasiirada iyo ku-xigeenadooda dhammaantiinba iyo shacabkaba inaad gacan ku siiseen waxaa lay tusay guryo badan oo la dayactiro oo ciidda ka badan oo lagu intifaacayo maanta waxaa lay tusay kuwa burbursan oo ay ku soo dhawaadeen xaafaduhu iyo meelal dhulka in wax laga qaato la damcay Soomaalida marba waxba lagu salladaayo marka dhul baa lagu salladay oo dayr lagu wareejiyay qaaliyo oo guryo badan lagu dhisay si loo badbaadiyo wuxuu madaxweynuhu ii sheegay in 580 aqal oo ay dawladdu lahayd wixii la dayactiray maayo intii kale gacanta lagu hayo waxa maqana hadda hawsheeda lagu jiro in la baneeyo oo la diyaar gareeyo way u qarantaa inay baagii lagu magacaabay magaalada saddexaad oo caasimada saddexaad oo dalka way u qarantaa hawshaas laga qabtay iyo inta hanti dawladeed ku taalo oo maamulkan hirgeliyo waxaan aad ugu amaanayaa madaxweynaha uu ii sheegay in aqalladii ay ka tageen oo ka qaxeen dadkii hindida ahaa carabtii iyo talyaanigii sidoodii ay loo ilaaliyo aan cidi beelaqaysan dawladuna wakiil ka tahay cid gacanta ku haysta oo loo ogolaaday inay wakiil ka noqotaan ay jirin cid timaado iibsatan iyada ay xor yihiin waa waxaan meel kale laga hilgelin laakiin amaanta gaarka idinka iska leh ilaa lama wadaago waxaan idinku baraarujinayaa Soomaalida waa abtirsiya jeceshahay reer hebel iyo reer hebel 4.5 iyo qabiil iyo hoog iyo baba la soo maray maanta u dhamaysa doorashada soo socota ma jirto hadeer baa loo tabaabushaysto ninkii fiican baa la dooranayaa deegaan baa laga dooranayaa nin dhulka cidlaa meel ka dhashay ma jiro nin walba meel buu ka dhashay abtirsiyiin waa Soomaali reer Jubbaland baa tihiin haddaad rabtaan jilib ka soo hooseynaya degmada ka timi baa tahay intaas ku abtirsada sida adduunyada kale ugu abtirsato qabiilka iska dhaafa iskana tuura dhinaca kale xildhibaan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ay xilligan haystaan dhulalkii iyo hantidii danta guud iyo sidoo kale guryo iyo hanti ay lahaayeen shacabka Soomaaliyeed waxaana uu baaq u diray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay wax ka qabtaan arrimahaasi maadaama ay dowladihii ka horeeyay ay ku guuldareysteen dib u soo celinta dhulalkii danta guud iyo kuwa shacabka ay lahaayeen ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxaan ka xumahay run sheeg waa ceeb sheeg baa la yiri inay xamar maanta taas ka jirin oo dad hanti ay leeyihiin iyadoo dawladda ay ka dhisnayd muddo dhowr iyo 10 sano dad maanta jooga ay dhici ka qaarkood in xildhibaanayeen oo dawlad ku jiraan hanti ay leeyihiin laga haysto dhul dawladeedna la bilaqaystay hanti badan oo dawladdu lahayd ama dad bareedada laga gaday ama dawladda la siiyay iyadoo nidaamkii sharciga ah loo marin waxaan rajaynayaa xukuumaddu waagi dhow halkan ay timi haddii aragtay haddii kalena halkan inay timaado madaxweynuhu u horeeyo oo ra'iisul baarlamaanyaashu u horeeyaan oo ay arkaan oo xamar laga hirgeliyo nidaamkaas oo kale
oo yimaado gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrintan ka fiirsado oo halkaas oo kale xamar ka hilgeliyo taasaan rajaynaa wixii la dhacayna soo celiyo haddii kale isku mid lama ahaan karayo arrintaas ha ogaato beesha caalamku dareenkaas inaan qabno anigoo maanta ka mid ah xildhibaan oday ah oo waayo arag u ah oo aqalka sare ku jira inaan anigu ka mid ah inta dareensan arrintaas ha la ogaado tan kale waxa weeye waxaa jira burburkii intuu jiray dad badan oo sidaa burburku yahay ku qanacsan oo mindhaadheef ku haysta ama aan garanayn waxa ku xiga haddii nidaam fiican oo hirgalo inuu dan ugu jidhayo in kale aan garanayn caqabadahay ka mid yihiin dadkaasu waxaa weeye dad soomaali oo dhan ka kooban meel walbana waa joogaan laakiin muqdishoay ugu badan yihiin marka arrintaasna ha la ogaado. maxamed qaasim cali waxar TV-ga caalamiga ee SABC magaalada Kismaayo.